haddii qof ku dhex dhinto oo aysan ku xidhaan meesha oo ay qof ku dhex dhintana waxay noqonaysaa xasuuq loo geysto dadka. والله أنا كسوار خذ ويان حرق حويان صديقه وتر قلي وحي صديقه بحثوا سعود رمى قاسة يوم متدق وحاول تقدر بسوي كل بعض يوم ما أركع ما هو خذ توتاليا يا صديق باشرة صديقه وانت يقف فينا لقي ويو حجر مساكين بدوننا بحكرين هو وحي إن بحيانا ضونية إن ما شاء الله وحريش يا سنة ولا دعتي بين القناص jeelkuna wax way kaa la wada yaqaano laakiin haddii jeel gaar ay samaystaan wasaaradda caafimaadka oo jeer samaysatay la mid tahay tabeerahay la mid tahay taarimaha gudahay la mid tahay taarimaha dibadda la mid tahay qof kasta oo hay'ad kasta oo nidaam u dhisan nidaamkeega hadday ka gudubto waa xaaraan waxaas taliyaha saldhigga iyo station mar ay diideen baan filayaa iyagu in dadka u xidhaan dawladda hoose in iyadu saldhig dhexdeeda keensatay dad ku xidhata waan ku bogaadinay waan soo dhaweynaya marnaba ma banaana soconna mayso dadkuna aqbali maayaan wala laynaga hor iman doonaa waan ka soo horjeednaa waxaan leenahay arrinka dib ha uga noqdaan saldhig baa jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ وضيال ميل كسر جوكتان كسر دوادي برامج كني ويدين تسألها والميكروفون كله نحمرينه إرشاد الرير بورما برامجكم حد كذا وطان وربعين تين عشق تي في برامجكم حيدين داديسان جوا بشارة بالجامعة حد بدأ وضع سؤال شمان تو حي هيد دولة هوسية دقمة بورما وحي صدق كده حسن مساتي إصلاح رند دولة هوسية دقمة بورما صدق قاسي والله قلت لك جلي إن لو حرو عشور بحياشة هري عشور تكون بحواي يولبا xaafadaha biyuhu ay ka soo daataan ee albaabada laga soo qaado halkii markii hore laga xiri jiray saldhigga dhexe ee magaalada Boorama haddaba daawada aragtida commentiga noogu reeb mahadsan walaal soo dhawow adoo magacaaga ku bilaabay waan dhawahay magacaygu waa Abubakar Maxamed Cabdi Abubakar waa soo dhaweynayaa waxaan kugu soo dhaweynayaa warbaahinta Cishq TV mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga ah Abubakar su'aasha maanta waxay tahay dawladda hoose ee degmada Boorama waxay saldhig ka dhex samaysatay isla xarunta dawladda hoose saldhiggaasi oo loogu talagalay in lagu xiro dadweynihii cashuurta bixin jiray ee waliba cashuurta ay ku raagtay iyo waliba dadka biyuhu ay xaafadaha ay biyuhu ka soo daataan halkaasi oo markii hore la geyn jiray saldhigga dhexe ee magaalada Boorama arrinkaasi sidoo kula muuqda waan maasantiin warbaahinta Cishq TV anigu haddaan ra'yigayga ka hadlo aragti ahaan waan soo dhaweynayaa saldhigga ay dawladda hoose ka dhex samaysatay dawladda hoose waayo waxaan qabaa Soomaaliland oo dhan dawladda hoose saldhigyada way leeyihiin waxa markii Soomaaliland oo dhan ay wada leeyihiin reer Boorama waa ku cusub yahay sidaan filaayo laakiin haddii Soomaaliland la qaban waan ka soo horjeesanaa laakiin dawladda hoose Soomaaliland ku yaalo dhanba saldhigga way leeyihiin waliba waxaan jeclaan lahaa riyowga ay cashuuraha dadka qaar heli kari waayay kara laakiin dadka biyaha ku soo daadiya wadooyinka kuwaas ma xidho kuwaas soo dhaweynaya saldhiggana waan soo dhaweynaya maayarka iyo dawladda hoose ku bogaadinaya in waayo cashuurta dawladda ay ururisay waa taa inagu wadooyinka loogu dhisayo aan rabno marka maadaama aan ognahay in taliyaha saldhigga iyo station mar ay diideen baan filayaa iyagu in dadka u xidhaan dawladda hoose in iyadu saldhig dhexdeeda keensatay dad ku xidhata waan ku bogaadinay waan soo dhaweynaya maanta waxay tahay dawladda hoose ee degmada Boorama waxay saldhig ka dhex samaysatay isla xarunta dawladda hoose si ay ugu soo xidhaan dadka cashuur bixiyaasha ee cashuurta la raagay iyo waliba xaafadaha biyuha soo dareeriya ee lagu ciqaabi jiray saldhigga dhexe ee magaalada Boorama ama lagu xidhi jiray arrinkaasi inay dawladda hoose saldhig ka dhex samaysatay isla xaruntu sidoo kula muuqda والله أنا كسوار خذ ويان حرق حويان صديقه وتر قلي وحي صديقه بحثوا سعود رمى قاسة يوم متدق وحاول تقدر بسوي كل بعض يوم ما أركع ما هو خذ توتاليا وحي حرق صديقه لو تر قلي يا لا ما أمني لكن مش ما حقول أحسن مش بالعركة بالأحوال مساكين تلقوا عذاب أو أبو صور كذا وأنا أدم بوين ويان كيف وخاط يا قد ما تصنت أنا ما ضمك صودو هذا ولا مقع سبقلي برانجي subag la waa soo dhaweynaya waxaan kugu soo dhaweynaya warbaahinta Cishq TV mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaligeedna siisay subag la su'aasha maanta waxay tahay dawladda hoose ee degmada Boorama waxay saldhig ka dhex samaysatay isla xarunta dawladda hoose ee degmada Boorama saldhiggaasi oo loogu talagalay in lagu xiro cashuur bixiyaasha hore cashuurta u bixin waayay iyo waliba xaafadaha biyuhu ay ka soo daataan ee markii hore la geyn jiray saldhigga dhexe ee degmada Boorama arrinkaasi saldhiggu inay dawladda hoose xarunta dawladda hoose ay saldhig ka dhex samaysataa sidoo kula muuqda wuxuu walaaliila muuqda arrin qalad ah oo qayr macquul ah ee saldhig baa jira saldhigga wanta qof fiina la geeyay waayo waxa jira masaakiin badan oo aan bixin karin oo wixii inay bixiyaan doonaya in meesha lagu xireysto ya سنة ولا دعتي بين قناص
markaa looma baahno da inay dawladda hoose shaqadeedu inay ku ekaato ya xashiish bay samayn jirtay xashiishkii qof kalaa imika eeg dad kalaa loo sameeyey wadfaan xashiishkaa loogu talagalay soo mahay xashiishkiina imika wala kalaa lacag iyadna ka ururisa markaa dee shicibkii waxay noqonayaan inaa la haaligadi ya oo halkan igu xiro la yidhaahdo taasna غير معقول bay noqonaysaa aniga waxay la tahay ha mahadsanid hay'adaha mudan soo dhawaada magacaagana ku bilaabay cabdi suldaan kaadiya la yiraahdo cabdi suldaan kaadiya waa ku soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kugu soo dhaweynayaa warbaahinta Cishqa TV waxaana kaaga mahad celinayaa waqtigaaga qaaligeeda siisay su'aasha maanta waxay tahay cabdi dawladda hoose ee degmada Boorama waxay saldhig ka dhex samaysatay xarunta dawladda hoose taasi oo ay ugu tala galeen inay ku xidhaan cashuur bixiyaasha cashuurta bixin waaye ama la raagay iyo waliba xaafadaha ay biyuhu ka soo daataan ee awal lagu xidhi jiray saldhigga dhexe ee magaalada Boorama arrinkaasi soo kula muuqda waa khayral dastuur cid nabadgelyada ciddii haddii cid la xidhayo soo qabashada booliska iskula saldhigyada booliska lagu hayo booliskuna maxkamaddu u gudbiya iyo koo dacweyn karaya qofka ku dacweyn karaya cashuurtiibuu bixin waayey in ay saldhig iyagu ka dhex samaystaan dastuurkana kuma qorna waa sharci darro waa xaaraan markaa maaha wax sharciya haba yaraatee haddii qof ku dhex dhinto oy ku xidhaan meesha oo ay qof ku dhex dhintana waxay noqonaysaa xasuuq loo geystay dadka shaqada dawladda hoose wixii ka baxsan ee dastuurkana aan ku qornayn waa xaaraan sharci darraanu arkaa midda kale haddii dhinaca dhaqaalaha ay ka eegayaan waa inay sharciga waddanka u yaalla ixtiraamaan oo ay dadka maaha dadku maxay hayday dad yaka xero ugu jira ummaddu sharci bay ku nooshahay sharci bay ummadda ku kala socotaa dhaqan bay ku kala socotaa nidaamka dhaqaaluhu wuu ka duwan yahay nidaamka wax lagu xidho wax soo xidhi kara wax soo qaban kara jeel geyn kara ciidanka booliska jira markay maxkamadda ka xalaashadaan xitaa boolisku dadka ma xidhaan laakiin way ku hayaan maxkamadda u gudbaan maxkamadda waxaan ahayn ma jirto jeelkuna wax weeye kaa la wada yaqaano laakiin haddii jeel gaar ay samaystaan wasaaradda caafimaadka oo jeer samaysatay la mid tahay tabeerahay la mid tahay taarimaha gudahay la mid tahay taarimaha dibadda la mid tahay qof kasta oo hay'ad kasta oo nidaam u dhisan nidaamkeega hadday ka gudubto waa xaaraan waxaas aad baynu waan ka xumahay waxaas magacaaga ku bilaabay magacaygu waa maxamed axmed ismaaciil maxamed waa ku soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kugu soo dhaweynayaa warbaahinta Cishqa TV waxaana kaaga mahad celinayaa waqtigaaga qaaligeeda su'aasha maanta waxay tahay maxamedow dawladda hoose ee degmada Boorama waxay saldhig ka dhex samaysatay xarunta dawladda hoose kaasi oo loogu talagalay in lagu xidho cashuur bixiyaasha cashuurta bixin waayey iyo waliba xaafadaha biyuhu ay ka soo dareeraan albaabada laga soo saari jiray iyadoo markii hore la geyn jiray saldhigga dhexe ee magaalada Boorama arrinkaasi soo kula muuqda in dawladda hoose ay saldhig samaysato bismillaahi raxmaani raxiim saldhigyada ka madax bannaan inay hay-ad dawladda ka midihii ka dhex samaysato meesheeda waa sharci darro waa mid xaaraana waxaan u arkaa sharcigii oo laga gudbay oo gacanta lagu qaatay waxaan leeyahay dawladda hoose haddii sharcigu shaqayn waayo dawladnimadu shaqayn mayso sharcigu ha shaqeeyo sharciga ku socda ninkii la soo xidhay ee dembi leh saldhigyay leedahay magaaladu oo tiraba 4 ah markaa waxaa laynaga rabaa inaad magaalada maxay ahayd magaalada dadka dambiilayaasha lagu xidho halka loogu talagalay ma bannaana in lagu xidhaa haddayna ahayn meel lagu yar sugsiinayo dadka oo xiro guusha haddayna ahayn oo halkaa saldhig looga samaynayo marnaba ma bannaana soconna mayso dadkuna aqbali maayaan waana laynaga hor iman doonaa mahadsan insha allah soo dhawaada magacaaga ku bilaabay anoo magacayga ku bilaabay waan dhowahay tiimka suxufi Cishqi bulshada u shaqaynaya aad baan ugu mahadcelinaya waan dhowahay walaal magacaygu Cabdiqaadir Jaac Muuse walaal cabdiqaadir waad mahadsan tahay oo ku soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kugu soo dhaweynayaa warbaahinta Cishqa TV ee dawladda hoose ee degmada Boorama waxay xarunta dawladda hoose ka samaysatay saldhig ay ugu tala gashay inay ku soo xidho dadka cashuur bixiyaasha ee cashuurta bixin waaya iyo waliba xaafadaha biyuhu ay ka soo daataan halkii markii hore la geyn jiray saldhigga dhexe ee degmada Boorama arrinkaasi soo kula muuqda
بسم الله الرحمن الرحيم والله بعض أنيقو ومهنقيا في عنا بشرة وشقينا إنسان دولته هوسو دانو كمون وبين سلقينو كده حدثية هذي حرصة ما يستين ضد كايكو أوضان وأنت سوق قبطان عي سلي كده حجليان وعصوحي الله دورته ما وعلى دورته إنه أمضى درين كوا كشقيان ضيع تران ويبشرة ضيع تران ويبقى ضيع تران أي الله دورته الله ما دورن بشرة إنه عبورسو oo sidii ariga markuu beer galo ayaa la xireen jiray oo lagu xireen jiray meel la oodo dadka bulshada magaalada degan inay meel ku oodaan waxa suuxii loo doortay ma waan ka soo horjeednaa waxaan leenahay arinka dib ha uga noqdaan saldhig baa jira madax baa ka taliso gobolka magaaladu waxay kala leedahay afar degmaba afar saldhig baleeda afartaas saldhig wixii soo dhaafa anigu ma ogolin taalina kama nin mahadsanid والله سنتها ولا معه waan soo dhawahay walaal magaca maxamed warsame maxamed warsamo waa ku soo dhaweynaya waxaan kugu soo dhaweynaya warbaahinta Cishqo TV su'aal waxaan ku weydiinayaa dawladda hoose ee degmada Boorama waxay saldhig ka dhex samaysatay xarunta dawladda hoose saldhigaas ay ugu tala gashay inay ku soo xidho cashuur bixiyaasha cashuurta bixin waayay iyo waliba xaafadaha biyuhu ka soo daataan ee albaabada laga soo saaro halkii markii hore saldhiga dhexe la geyn jiray arrinkaas saldhigu sidoo kula muuqdaa wuxuu ila muuqdaa haddaan fikradayda ka dhiibto saldhiga dawladda hoose ay samaysatay wuxuu ila muuqdaa kolka horeba buquuq bay ahayd waa buquuq ay sii samaysteen waxayna waa sharci darrade sax waxayna waa sharci darro magaalada Boorama gees walba saldhig baa ka muhiim oo taliyihiisii leh oo kii ka sarreeyay oo maamulkiisii leh ka halkaa lagu samaystay waxay ila tahay aniga sharci darro sax sidaayna si dee socon karaysa ma si dadweynaha qabatana ma waxay arkin saldhiga magaciisa anu hadda weydiis ay arkin waka haddaba dadkay arrinkan khuseeyaan maxaad fariin u reebaysaa waxaan u reebayaa wixii sharci darro ah dee xor baa la yahay dadkuna waa muwaadin cashuurta dawladda cidina ma diido sax toos baa loo bixiyaa sax wixii kale waxaa dheer dee dadka muwaadinka in laga daayo weeye sax saasaan dadka u dirayaa mahadsanid hadda waad maasan soo dhow waa soo dhawaada bishaado magaca abgaal cana balada caqal abgaal waa ku soo dhaweynaya waxaan kugu soo dhaweynaya warbaahinta Cishqo TV su'aasha maanta waxay tahay dawladda hoose ee degmada Boorama waxay samaysatay saldhig ay ugu tala gashay inay ku xidhaan dadka cashuur bixiyaasha ah ee albaabada laga soo qaado ama cashuurta bixin waaya iyo dadka biyaha xaafadaha biyaha daadiya ee albaabada laga soo qaadi jiray abgaal arrinkaasi muxuu ku leeyahay saldhiga laga samaysay dawladda hoose waa qalad saldhiggaas waa qalad taliya qaybta Boorama ma oda ama weela ma oda taliya qaybta Boorama maayilka degmada Boorama ku shaqolay saama calayhi daawadayaal waxaa intaasi inoogu idil barnaamijkeennii weydiinta su'aalaha waad ka daawanayseen warbaahinteena Cishqo TV intaan barnaamij lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa mahadsanidina sidaas iyo isxaq dambe xiiso leh